laba su'aalood oo isku eg baa halkan la soo qoray. waxa saa'ilku leeyahay oday aabbahay waa xanuunsanaya ayuu yidhi. dabadeedna nin sheekha ayaan u tagnay. waxa uu noo sheegay inuu jinka arko lana hadlo. marka wuxuu yidhi 1523 jin ayaa ku jira oo ay dhaleen jiman kale oo khaniisiinay. wuxuu aabbahay waa xanuunsaday. kadibna waxaan u geynay buuri sheekh lanoogu sheegay inuu jinka arko oo uu la hadlo. marka ninkii u geynay wuxuu yidhi ninkan waxaa ku jira 1523 jin oo ay dhaleen jiman khaniisiinay, kuwaasoo uu ku laayay buuri suuli dhexdi. marka waxay doonayaanna waa magtii. bogtooduna waxay noqotay $300 iyo 3 neef oo loo qabo sidaanay nagu nabadgelinayaan, isna uu ku caafimaadayo. wuxuuna tusay meel uu jinka lacagta u dhigo, waxaanu ku daboolaa baaldi madow. diintu maxay ka qabtaa buuri? su-aal taa ku dhow baa jirta. aabbahay baa xanuunsaday buu isna yidhi sheekh baan u tagnay wax dabiiba. marka sheekhi wuxuuna weydiiyey buu yidhi magaca aabbo iyo magaca waalidkiisa. intii markaan u sheegnay wuxuu yidhi ninkan waa sixran yahay. kadibna ii keena buu yidhi kitaab ayaan u baadhayaa iyadana diintu maxay ka qabtaa. isaga laftiisa ii keena. marka hore telefoon baan kala xidhiidhnay buu yidhi. markii dambe isaga ii keenay buu yidhi kitaab baan u baadhayaa. waxaa saa'ilkan uu leeyahay nin aanu saaxiib nahay oo qurbaha jooga ayaa isagoo sooman sina ku dhacay. kafaaro gudkiisu muxuu noqonayaa? maya ramadaan ma ramadaan u soomanaa laakiin ramadaan su-aasha xigta wuxuu leeyahay qofka xasaasiyadda leh ama samboorka leh inta badan waxyaabo khaaqa u eeg baa ka yimaada oo inuu iska ilaaliya ay ku adkaanayso markuu sooman yahay. haddii wax ka mida uu liqo soonkiisu muxuu noqonayaa? su-aasha xigta wuxuu yidhi labada ragcadood ee midha witriga ah ka horeeya iyaduma witriga ay raacaysaa mise taraawiixda kale ragcadaheeda? su-aasha xigta wuxuu yidhi haddii imaamkii uu israaciyo 3 ragcadood oo witriga adiguna aada niyootay inaad kala jarto xukunkii salaadaadu muxuu noqonaya? su-aasha xigta gabadhba waxay tiri waxaan furannay meel dadka timaha lagaga zuuliyo. marka timahaasi qofka laga xeerayo guyxaadda iyo waxyaabahaasi tilmaamasa marka xukunkoogu muxuu noqonayaa? gabadhba waxay leedahay masaajid agtayda ah ayaa masaajidada kale ka dambeeya xagga eedaanka salaada subax. haddaan kaa markaasi aan eegto oo masaajid agtayda ah wuxuu ka dambeeyaa way tiri masaajidadii kale salaada subax eedaankooda. marka kaa haddii aan anugu iskala wato xukunkii soonkaygu muxuu noqonayaa? gabadhba waxay leedahay waxay la joogtaa inan uu odagaygu abti u yahay. inantaa yar way igu dhagaadagtahay bay tidhi anoo sooman baan caayaa oo aan dilaa. waxay la joogta bay tihi inan yar oo odagaygu abti u yahay oo igu dhaga adag. inantaa yar waan dilaa bay tihi waanan caaya waanan caayaa waanan dilaa bay tihi anoo sooman. xukunkii soonkaygu muxuu noqonayaa? waay saa'ilka wuxuu leeyahay aabbahay oo beri hore dhintay ma garanayna inta soone lagu leeyahay maxaanu ka yeelnaa? wuxuu yidhi aabbahay iyo adeerkay baa meel wada lahaa. aabbahay wuu dhintay, adeerkay baana ku shaqaystaa. marka agoontii maxaa laga yeelayaa? wuxuu yidhi halkanaan wax ku barannaa intaydii waaweynayd. carruurtayadiina miyiga ayay joogaanoo xoolahay ku raacaane annaga wax dembiyi miyuu naga raacaya? carruurta halkaa miyiga ku raacaysa xoolaha halkan magaaladan ku raacnaa buu yidhi ayaan wax ku barannaa anugu ciyaalkayga ana miyiga xoolaha ku raacaan wax dembiyi miyuu naga raacaya? saa'ilkan wuxuu yidhi safar baanu ahayn qasrina waanu xidhannay. masaajid baanu soo galnay oo 4 ragcadood baanu la tukannay.
marka laba ragcadood oo jamcu taqdiima ayaanu tukanay laba ragcadood jamcu taqdiima aanu tukanay waana isku khilaafnay ma sax waa mise waa qalad waliyul amriga in la deeco xukunkeedu waa maxay waliyul amriga in la deeco xukunkeedu waa maxay wuxuu leeyahay haddaan qur-aanka aqaano oon masaajidka afar la tukado lixda kalena aan gaar u tukado maadaama oo aan doonayo sujuud inaan dheereeyo oon in badan ilaahay baryo marka jamca aan la tukanay taas ay ugu adag tahay dhib miyay leedahay qaybna halkan ku tukada qaybna guriga oo ku tukada بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه qolyaha la sheegay in xanuunsanayaan oo wadaadka loo geeyay jinka iyo sixirka sheegaya in fara badan oo kamid ah waa beenaalayaan kan la 1523 baa ku jira ee haddana sidii ay ku dhasheen ka sheekaynay jinka ilaahay baa yiri innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu si aydaanu arkayn bay iyagu idin arkayaan inagu ma aragno ninku hadduu ku yiraahdo jinkaan arkaa ka shaki inuu beenaale yahay bay u badantay wixii dambu ku sii dhisaana waa waxba kama jiraan tirooyin buu iska sheeganayaa 1500 iyo googo haddana saasay ku dhashay buu ku leeyahay magtooduna waa 300 buu wuxuu markaa raqiisana qofkiiba maxaa ku soo hagaagay 1500 midkii xataa $1 markaa ma aha maxay noqonayaan marka lacagta meel buu u dhigay ka qaataan buu yiri waxa soo dhami waa khuraafaad iyo neefafka noocaas waxa soo dhami been weey كذاب ashir weey jinku lacag ma qaato haduu qofku garaal jinku lacag buu qaatay waa beenti khasnadaheenu u dhici lahaa bari hore Soomaa oo jabsan lahaa oo la bixi lahaa ilaa waxa maartay jismiga markaa latiifka ah ee aan maartay gidaarna celinayni waxna celinaynin waxa soo dhami akaadiib weey dadka lagu jabsado sixirolayaasha iyo beenaalayaashana ku shaqeysta marka waa inaan waxa la dhageysan dhag loo dhigin sixirku wuu jiraa ishuna way jirtaa laakiin kitaabka ilaahay ayaa lagu daweeyaa quraanka lagu daweeyaa ducada lagu daweeyaa sixirkii hadii la helo oo la furfuro ayaa lagu daweeyaa meeshii ku jira hadii la arko laakiin waxan kale huhaada ah ee dadka lacagta lagaga furanayo iyo waaru kitaab furayaayo magaciisa inta magaca maxayga iyo qoraayaan kitaab ka baaraya waxa soo dhami been weeyaa kitaab sheegay qofka haduu magaciisu ka yahay xanuunka noocaas ah ku dhacayana xukuma jira magaca dadkaagii baa ku bixiyay wax la wax calaaqo ka dhaxaysa magaca lagu bixinayo iyo xanuunada kugu dhici doonana ma jiraan marka waxa soo dhami waa wax dadka lagu harowsado oo lagu jabsado jeebkoodana lagu furto waa in la iska ilaaliyo qofka la yiri isagoo sooman buu sinaystay hadaanay rabadaan ahayn kafaaro lagu yeelan maayo laakiin de zinadu de siday dambi weyn oo min kabaa'ir dunub ahayd inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uga toobad keeno ya la gudboon de soonkiisina xukuma jiraan qofka sooman xaakada ama andufta adag ee laga yaabo cunihiisa inay ku sameeysanto ama riiraxyadii wax noocaas ay keento waa inuu iska tufo kala dan andufti caadi ahayd wax kale adag ay tahay waa inuu iska tufo way ku adkaanaysaa buu yiri laakiin da adaygaasi ma naan arag inta uu soomeynay waxa laga yaabaa in saacadii ama labadii saacadood ay markuu ku timaado waa iska tufi kartaa intaas maxay tahay wax marka adaygo iyo culays ay keenaysaa ma jirto maaragtay software baad iska qaadan kartaa oo iska tufi kartaa ama masar yar ama waxba samaysan kartaa labada ragcadood ee witriga ka horeeya witriga ay kamid yihiin witrigu waa ilaa 12 ragcadood buu noqdaa oo laba loo tukanayo marka labada ragcadood ee hore ee saddexda kamid ka witrigu bay kamid yihiin witri baa la niyoonaya laba ragcadood witriga baa la niyoonaya saasana loo tukanaya su'aasha ku saabsan hadii saddexii la xiriiriyo imaamku xiriiriyo iyadoo la siin qofku aanu siin niyoon muxuu yeelayaa adoo hadaad laba niyootay labadaadii markuu
tukato ee uu tasaddexaad u kaco waad ka tixyaadsanaysaa waad ka goosanaysaa waad ka baxaysaa tasaddexaadna waad la gelaysaa haddaad doonto haddii aanad marka horeba tira niyoon ee aad witri u niyootood saa ku gashay markuu tii saddexaad u kaco dee waad iska raaci kartaa markaa saddexdiiba inaad saa ku tukata ayaad ku talageli oo ay kuu noqoni adigoo aan isdareensanayn oo laba niyooday maalan ama niyada iska itlaaqay oo aan tira niyoon haddii uu saddex tukado dee tii saddexaad adiga kuumay xasilin tii saddexaad adiga kuumay dhicin taa saddexaad adigoo aan dareensanayn la tukaday kuuma tirsana meesha ay tiri waanu furno timaha lagu xiiraa dee tima in la xiira aan la ogolayn baa jira sunnayaashii iyo haddii kuwaa la xiirayo dee waa dembi haddii ay waxaan kalunxaad iyo wax noocaasa tahayna dhibaato ma laha suxuurta way tiri adaanka u dambeeyaanu iska eeganaa ka waran adaanka u dambeeyay ma eeganaysid adaanka saxda ah baad eeganaysaa marka haddii saacadii imika saacadii baa la wada haystaa saacadaas la ihtimaadii waxa weeyaan adaanka waqtigiisii uu dhacay ka ugu horeeyay adiyood ku joogsanaysa ma oranaysid weli masaajidkii jaarkeenu mu aadimi sax ma ah inanta ay tiri odaygaga abtiyo ah oo guriga la joogta way ugu dhaga adag tahay marka waan uleeyaa marka horeba yaa ku fasaxay inaad dirsato caruurahan aad guriga jooga ee aad ku adeeganayso waa inaad fasax u haysato caruurtaada dee adigaa dhalay oo adigaa ka mas-uula cidna iyaga markaa waxba ka weydiin maysid laakiin caruurahan kale mas-uulna kama tihi inaad ku adeegataana idan bay u baahan tahay iyo markaa waxa weeyaan in cidi kuu idanto odayaagan abtiga u ihina ma idmi karo isaga laftiisu mas-uul kama ah sharci ahaan cidda ka mas-uulkii waa ciddii dhashay haddii aanay jirinna oo waalidkeedii aanu joogin waxay maaragtay ama dee aanu noolaynba waxay noqonaysaa cidda ka mas-uulka ah dowladdu cidda u magacooday ayuunbaa ka mas-uul noqon karta cid kaleo ka mas-uul noqonaysaa ma jirto marka idinku waxaan aad siinaysaan iyo quudintani waa sadaqad aad la baxaysaan laakiin maaha macnaheedu iyaduna ha noo adeegto oo aan ku shaqaysano marka inaad ku adeegatana xaq uguma lihi in aad la dirirto ama aad canaanto ama aad caydo waan caayaabay tiri xaq uma lihi waa xadgudub inaad dishaana waa xadgudub kale waxaasoo dhan xaq uma lihid waana wada xadgudub ilaahay inaad uga toobad keento iyaduna hadday dee qaangaadhay aad isaamax tiraahdo haddii kalena dee markay markaa qaangaadhay insha allahu tacaala saamaxaad lagaaga qaado ayay dee noqonaysa maxaa soona waaba xadgudub bay ku jirtaa soonku dee ma jabayo laakiin dee qof dembi ku jiraata aabbaa geeriyooday buu yidhi mana garanayno soonkii lagu lahaa intii uu ahaa haddaad og tahay in soon lagu lahaa waalidkaagaa geeriyooday intaad hubtaad ka soomaysa inta aanad hubinna dee inaan lagu lahayn baad ka soo qaadaysa aabbaha iyo adeerkay baa waxooda lahaa aabbaa geeriyooday aabbaa wixii o dhan adeeraa wixii o dhan ba iska wada qaatay dee xaquma laha inaad intii aabbihiin dee hana la siiyo lagu soo wareejiyo tirahdaan baad xaq u leedihiin isaguna inu iska wada qaataa waa dembi iyo xaqdaro xoolo u dhacay bay noqonaysa caruurtii qayb baa baadiyaha joogta annaguna halkan aan wax ka barannaa haddii markaa xoolihii ay dayacmayaan waalidkii aanay u suuragal ahayn inuu halkan idin wada keeno wax dhibaataa insha allahu tacaala ma laha walow ay fiican tahay caruurta in si laga wada yeelo marka iyagana dee haddii uu halkaa ku reebay oo ay yaryar yihiin idinkuna aa ka roonrootina wax baranaysaan in markaa cadaaladdu waxay noqon iyaguna markii ay waqtiga waxbarashada gaadhaan in iyagana halkan la keeno wax la baro ama halkoodaaba dee macallin loogu geeyo oo sidaa wax u baranaysaan iyaguna ay wax u bartaan bay cadaaladdu noqonaysa laakiin la odhan maayo magaalada wada keen haddii ay xoola dayacmayaan wuxuuna weydiiyey qoladaa safarka ahayd ee imaamka la soo gashay salaada ee afartii ragcadood la tukatay haddii ay ujeedo haddana jamac laba ragcadood oo jamac aan haddana tukanay wuu leeyahay hadduu ujeedo
intaanu imaamkii matalan salaadii duhur afarteedii ragcadood la tukanay ayaa markaanu ka baxnay inaanu casarka yagii iska raacsanayo laba ragcadooda waa sax xawaalid kama qaldana haddii uu u jeedo afartan ragcadood un baanu labana duhur ka dhignay labana casar ka dhignay oo intaanu la galay oo laba la tukanay baanu ka baxnay oo duhur ahaan baanu uga baxnay haddana waanu la gallayo labadii u harsanaayo iyagana casar ahaan baanu niyoona casar ahaan baanu iyagana uga baxnay duhur iyo casartoona uma jiro labaduba way ka bureen duhurkii wuu burayo inay afarta tukadaan baa la doonayay kor hadaad imaamka ku xidhatay imaam afar tukanaya aad ku xidhatay inaad afar tukataa lagaa doonay laba kaa socon mayso dee casarkiina ma jiro kor haddaan duhurkii asixin casarkii jamcu taqdiimkaasi isaguna asixi maayo ولي الأمر إن لا أدعى حكم كذا وامحي أدو ولي الأمر يهي ده إن لا أدعى واجب بين قنايس ولا دو ولي الأمر إنه يهي حكم طيب يحب ولي الأمر أدو حكمته إن لا أدعى أنا واجب بينه تراويح لقيب إمامك لالتو كذا قيب نقول اللي قلت كذا دبا تم لها وصلاة سنة سادو تادو تكون كرتا قبي كذا بقول قد كنت كان هذا دونتو هذا دونتو قبي كذا إمامك هذا تكون هذا كلا قيب السنة إذا دبا تم لها لكن وعفي عن إمامك هذا تكون سنة الله ما يسطو وإلى أن تكبر حياة الله بمسألة أجرك ورما يستر إن شاء الله تعالى وهشو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إلى الشيخ ميزانك حسناتك أسارة سؤالها ونوجد جواب الشيخ وكم هسنيه إلى سبحانه وتعالى علمك هو بركايو إلك هو بركايو دمك سيلا سبحانه وتعالى وقلافو إنك رب تبارك وتعالى كوي وقام فعاه نجيه صلى الله وسلم على نبينا محمد.